هو علي سعيد عبد النور خليف وأنا هاي مشرح أتاجن حلبان قلها ديجان كا جعلنا إن شاء الله إن إسكو شرحه قدومي هذيك مدة شريبا waxaan rabaa marka hore inaan warbixin aan ka bixiyo sababta igu kaliftay in aan gudoomiyaha degmada Jariiban aan musharax u noqdo anigu waxaan ahay ciyaal ku soo koray Jariiban ku barbaaray Brimo School ku bilaabay dugsi quraan ku bilaabay dabaasha ku bartay kubadda ku ciyaari jiray magaalada Jariiban intii aan qurbaha ku maqnaa markii Brimo ku dhacay waxaan ka mid ahay dadkii qurbaha aaday waxaan ku noolahay dalka Mareykanka baan ku noolaa waxaan aad uga shaqeynayay intii aan qurbaha ku maqnaa in aan horumarka degmada Jariiban inaan ka shaqeeyo bulshada deegaankuna in badan bay ama ku qurbaha jooga ama degmada jooga ay og yihiin annagoo in badan isku tashi si ah isbitaaladeeda iyo iskoolaadkeeda iyo horumarkeeda iyo abaaraha soo wajaha iyo wax badan ka qayb qaadanay laakiin horumarkii ii muuqday oo degmadu u baahnayd ma ahayn midka aan qabanay mid ku filan shantii sano ugu dambeysay waxaa igu jiray fikir ah in aan degmada Jariiban aan noqdo shaqaalaha ka shaqeeya inaan ka mid noqdo sababaha igu dhaliyay Jariiban inaan ka noqdo waxaan ahay qof dareemi kara ilaa yaraantiisii iskoolka dugsiga hoose dhexe markuu ku dhiganayay caqabadihii Jariiban ka jiray iyo kuwa hadda maanta ka jira ee deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah laga yaabo inay ugu horumarsan yihiin iyadoo degmadu ay tahay degmooyinka ugu waaweyn dalka Soomaaliya degmadaasoo ka weyn gobollada Soomaaliya gobollo badan oo ka mid ah inta ay ku fadhido 57 tuulo ay hoos yimaadaan haddana dhaqaalaha degmadu uu yahay dhaqaalo aad u wanaagsan balse hadda marka la eego degmadu ay ka mid tahay degmooyinka ugu dhaqdhaqaaqa yar xagga wax soo saarka iyo xagga haykalka dowladnimo waxaan go'aansaday in aan ka mid noqdo dadka degmada ka shaqeynaya degmadana horumarkeeda raba in ay qayb ka noqdaan haddaba waxaan rabaa halkaan inaan baaq uga diro dhammaan bulshada reer Jariiban oo ku nool adduunka dacaladiisa Jariiban horumarkeedu wuxuu ku xiran yahay bulshadeeda aan ka wada shaqeyno horumarka degmada Jariiban odayaasheena oo ku amaanan muddadii burburka colaaduhu jireen abaaruhu jireen maamul la'aantu jirtay sida ay horumarka uga sameeyeen xagga nabadgelyada iyo xagga isdhexgalka waxaan leeyahay waa inaad maantana wajiga labaad ee horumarka aad ka qayb qaadataan waxyaabaha Jariiban ilaahay ku galadaysay waxa ka mid ah deegaankeeda oo Soomaaliya in badan oo ka mid ah ay uga duwan tahay Jariiban meel kastoo ka mid ah inta habeenkii aad meel cilaa seexatid adiga oo wata 5 milyan oo lacaga 10 kun oo dollar adoo wata ayaada ka baqaynin in lacagta laga dhaco in lagu dilo iyo in cid wax ku yeesho qofkuna meel kasta u mari kara waxaan baaqiga rabaa inaan ku gaarsiiyo dhalinyarada Jariiban 75% dad ku nool waa dhalinyarada waxaan rabaa in ay fadhiga ka kacaan in ay siyaasadda iyo habda xaaladdu meeshay marayso iyo maamulka markaa jira inay involve gareeyaan aad iyo aad baan waxaan u salaamayaa dhammaan dadkii Jariiban meesha ay wanaagsan oo ay joogto soo gaarsiiyay waxaana leeyahay maadaama maanta dalkii horumar uu ka socdo horumarka aan ka qayb qaadano annaga oo dhameystiran qof walba meel buu ku fiican yahay qof walbaana meel buu ku xun yahay meesha qof ku xun yahana aynu ugu cududaaro meesha ku fiican yahana aan kala shaqeyno anigu haddii aan gudoomiyaha degmada Jariiban la ii doorto iyo haddaan la ii dooran bulshada reer Jariiban waxaan u sheegayaa mar walbaaba inaan u taagnahay inaan la shaqeeyo habda maamulka jooga haddii aniga la ii doortay inaan ka shaqeeyo habeen iyo maalinba sidii aniga iyo golaha deegaanku aan uga shaqeyn lahayn in aan arrimaha bulshada aan horumarkooda inaan ka shaqeyno khilaafaadkana u yareyno oo aan ku soo siyaadin deegaanka khilaaf iyo isqabsi aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.